magaaladan Kismaayo aniga Sheekh Cabdiraxmaan ba 2008 baan imanay yani 17 sano kadib 17 sano aan kala maqnayn imisa dad dhalatay imisa dad dhimatay imisa dad bukootay imisa adduunyo isbedeshay imisa aakhiro tagtay oo adduunka aanan joogin jamaacadii markaa nala socotay 3 nin ilaa 2 nin way dhinteen Allah u naxariistee marka kulligeen walaalayaal waxaan isku sheegaynaa waa wanaag qofka bini aadamkuna wanaag buu rabaa waliba mujtamaceenan dhalinyar baad u badan tihiin dhalinyaro xagga haweenkana dhalinyaro iga muuqata xagga wiilasha maaratan raggana dhalinyar baan u badanahay dhalinyar baad u badan tihiin lidaalika qofka dhalinyaradu waxa uu mar walba rajaynayaa mustaqbal wanaagsan inuu helo nolol wanaagsan shaqo wanaagsan qoys wanaagsan ilmo wanaagsan dawlad wanaagsan dal wanaagsan wax wada wanaagsan baan rabnaa soo maaha wanaaga aan doonayno dhan ayaa inoo haya war ayaa inoo haya bal mar kaliya Allah dhahada Allah wanaaga aan doonayna ayaa inoo haya Allahu rabbul alamin baa inoo haya cid kale waxba inoo ma hayso hadday nabad noqotona nabadda ilaahay baa ku haya hadday caafimaad noqoto caafimaadka ilaahay baa haya hadday arsaaqad noqoto arsaaqada ilaahay baa haya qofka bini aadamku wuxuu haystana ilaahay baa siiyey waxa qof walba ka maqan uu tabanayna ilaahay baa u haya walillaahi khazaa'inu samaawaati wal ardi ilaahay waxa uu ahaaday khazaa'inu samaawaat khazaa'inu kulli shay wax walba ilaahay jalla wa ala agtiisa ayay yaalin hadday caafimaad tahay ilaahay agtiisu yaala hadday arsaaqad ay tahay ilaahay agtiisa ay taallaa hadday nabad ay tahay nabadgelyadu ilaahay agtiisa ay taallaa hadday maxabad tahay maxabadu ilaahay bay ag taallaa wax kastoo bini aadamka wanaagu qofku doonayo ka u hayo waa ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii ilaahay uu bixiyana cidna ma celin karto wixii ilaahay uu bixiyana cidna ma celin karto wixii ilaahay caza wajalla uu celiyana cidna ma bixin karto qofka bini aadamka sida ilaahay uu qadaro alla ugu talagalay cidna kama bedeli karto nabigeena calayhi salaatu wasalaam xajatul wadaac isagoo markaa nebigu daabadiisii uu fuulaya gaadiidkiisii fuushan oo cabdullaahi ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday uu nebiga gadaashiisa saaran yahay ayuu nebigu ku yidhi yaa ghulaam innii ucallimuka kalimaatin ixfad illaaha yaxfadka buu nebigu ku yidhi yaa ghulaam kan yarow erayo ayaan ku barayaaye erayadaa si fiican u ilaali buu nebigu yidhi oo dhegayso ilaahay ilaali oo amarka ilaahay adigu ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya ilaahay amarkiisa ilaali buu nebigu ku yidhi hal alliya halkaad u kacdaba ilaahay jalla wacalaa waa kula jiraa waa macaaga uu ku arkaya uu ku maqlayaa ilaahay waxba kama qarsoomo ixfad illaaha yaxfadka buu nebigu yidhi ilaahay ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalin ixfad illaaha ilaahay ilaali buu nebigu haddana sii raaciyey tajidhu tujaahaka baa nebigu yidhi hal alliya halkaad u kacdaba ilaahay waad ka helaysaa ilaahay meelna kama maqno haddaad cirka tagtana ilaahay uu ku arkayaa haddaad dhulka gashana ilaahay uu ku arkayaa haddaad badda gunteeda gashana ilaahay uu ku arkayaa mugdiga haddaad wax ku dhex samaysa ilaahay uu arkayaa fagaaraha haddaad wax ku samaysa ilaahay uu arkayaa laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi samaa ilaahay tabaaraka wa tacaala samadana waxba kagama qarsoomaan arlada dusheedana waxba ilaahay kagama qarsoomaan waxba ilaahay kama qarsoomi karaan marka ilaahay caza wajalla amarkiisa haddaan ilaalinno inakana ilaahay baana ilaalin markaa buu nebigu sii raaciyo wuxuu ku yidhi waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu laka buu nebigu yidhi hadday dadka oo dhan khalqiga ilaahay abuuray jin iyo insi hadday iskugu kaa tagaan inay wax ku taraan waxay ku tarayaan ma jirta buu nebigu yidhi wax ilaahay kuu qadaroo meel ku yaallay mooyaane hadday is idhaahdaan addoonkaa dhib u geystana kuma dhibi karaan buu nebigu yidhi ilaa dhibaato hore lagugu qadaro ilaahay kuu qadaray inay kugu dhibaan mooyaane tu xaggooga ka imanaysa kuguma dhibi karaan buu rasuulku yidhi muxuu nebigu sidaa u leeyahay yar fadhiista in yar fadhiista walaal ismaqallo yar fadhiista dad badan baa inaga dambeeya iyakuna ha maqlaan hoo arkaan yar fadhiista inikoo ralli adeerayaal ii fadhiista adeerayaal maasha allah allah ina aqbalo khayr baa inaga muuqda diin jacayl baad u timaadeena yar fadhiista insha allah markaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruficat alaqlaam qalamkii waxa lagu qoray waa la kor yeelay
وجفت الصحف خدكنا ورقد واكوين جيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام قالنكي والله كوريالي قالنكي مقاديرته lagu qorayay waa laga qaaday meesha buu nabigu yiri warqadii lawhul mahfuudkii khadka lagu qorayna khadkii waa ku dulangeeyay buu nabigu yiri عليه الصلاة والسلام halka qofka bini aadanka waxa ugu qoran wax ka badili kara ma jiro haba yaraatee حتى جنيا إنسيا ملائكته هذا سكوك كا يمادان سيدا إلهي أذيك كو قرتو إلهي كو قدري عد كا بدل كريسة مجرت ولا ليال مركا نولوشن أدونك إلهي نكيني محامرك إلهي نقضونا يا إلهي وحوي نقضونا يا أدونك دوشي هذا إن الحقوق ده اللي نقول إياها إن سكاك قدنا أدونك اللي نوكيني دار أداء الحقوق بعلماء بلادنا أدويدني ودارتي ودارت حقوق دقفك بين آدم كاللغولة يهي وسكاك قدي لها وين أدويدو حقك هو بعد يا كوغولة إلهي كو أبو ريبا كوغولة إن هذا إلهي عبودو إلهي أتجعلاته إلهي أتكحشوته إلهي أدرميسو إلهي أتلسارته استحيوا من الله حق الحياة نبينا عليه الصلاة والسلام صحابتي سوحوا كيري استحيوا من الله حق الحياة إلهي كحشود أبو نبي قولي حشودك إلهي حقه إني يقول هينات كحشوتان والربي كحشود أبو نبي قولي مركب الصحابة يرادين يا رسول الله إلهي وانم هنقينا إلهي وان كحشونا مركب النبي قولي عليه الصلاة والسلام حشودك إلهي كحشود عن إلهي ما هساد فهمتني إذا جيست أبو نبي قولي حشودك إلهي عن كحشود عن إلهي وحويا برسولك يري مدح يوحي أوليي إناد إلى لسان إلهي كحشوتان يا علوش يوحي حريره يجانا وين إلهي كحشوتان وين الآخرة يا قبرك يا سؤاش قبرك يا عذاب القبرك وين هذا حصوصتان وكنت لقى شام النبي عليه الصلاة والسلام بأن مركزه أي النبي مدح يوحي ولي إلهي كحشوة ومحي مدح محاكو يالا مدح أرقي باكو يالا مدح محاكو يالا مقل كي باكو يالا مدح محاكو يالا ما ركتاني عرب كي هذا الكي باكو يالا مدح محاكو يالا عقلك بني آدم ككل ركبا بركة قفك بني آدم كوا إنه كعب صودا إلهي عز وجل إلهي كحشودا خاصة دلني يردا انت يرنا هيبال الربا إلهي سفي عننا نواضعنا ونقرنا سمال انت هدوينات أدقنا إلهي جل وعلا وكوكو قرقارو إلهي كوكو قرمدو من علماء الإسلام ككمدة والسلف ككمدة أي بقول بوجار عمريس وبقول يا ديرات لكن وبقول جر سدا لباتن جر كأو هالليا وبقول جر سدا لباتن جر كأو الصعدة وبقول جر سدا لباتن جر كأو كعايا وبقول جر سدا لباتن جر كأو حوجله مركز اللجوري يا شيخ محاد عنتيبا اللجوري وادي كان جبوب إلى دقائق له مركز له عنت معون دوانا معون إدجيستا حفظت الله في صغري فحفظ الله في كبري يران تيدي انت يرابا إلهي أمرك سئل لي مركان وين هذا حوجي يجي أود يدي إلهي بإله لي يبني محويري يران تيدي بان إلهي إلى لي معناها دلني يرد حلق أناها أود يدي دلني يرب إلهي كما عاصم ويان إلهي معاصم مركان يرابا عبصودي مركان يرابا إلهي كحشودي مركان يرابا إلهي عز وجل رالق لي markaan yaraabaan sidii ilaahay doonayay baan u socdoon u dhaqaaqay dana markaan weynaaday awoodaydiina ilaahay baa ii ilaaliyo ii sugay buu yidhi markaa madaxa iyo wuxuu hareereeyey ayaa la doonayaa markaa in ilaahay lagaga xishoodo araggu waa nicmo ilaahay ku siiyey ilaahay ha ku caasin maqalka waa nicmo ilaahay ku siiyey ilaahay ha ku caasin hadalku waa nicmo ilaahay ku siiyey ilaahay ha ku caasin caqligu waa nicmo ilaahay ku siiyey ilaahay ha ku caasin وين العلوشة ومحي علوشي هريري هيجنا علوشة هذا اللقمة حارانا هجلين عورة هذا ما ركتان معصيدة يفسق كإلالش وفك يرانتي سإلهي كبقى إلهي أضيعه نبينا عليه الصلاة والسلام وكيلها تضبط إلهي مالك قيامه وهرين دون وحا كمذا شاب نشأ في عبادة الله عز وجل نندل يرأه قفدل يرنمديسي طاعة إلهي عبادة يا صلاة يا خيرك كبر باري وحاو كم من نقول تضبط قيامه إلهي وحريه ما أنت دلني يرد إنه أنت نبضا سيدا إلهي ودونا يوم السعدان سيدا نفتو دعاء دونا سبع السعدان الداتر هذا وروحنا ذاك سدين ثم بنانينا وحاو كلها يا شيخ نفتو إذا آيات شعل الداتر هذا ورقاب كانت ما وحرة الدين الإسلام كما أقولنا
waxa uu ku leeyahay sheekh naftaa doonayso waxaan la socdaa waqtigaan la socdaa haddaad tiraahdo war waxaad dhegaysanaysa diintu ma ogolana waa runa buu leeyahay laakiin naftii baa jecel oo aan qaban kari lahay buu leeyahay ama naftaada un baad caabudi ama ilaahay ku abuuray baad caabudi labada waxba kama dhexeeyaan marka ayaa u diyaara inuu noqdo alla caabude insha allah dhahada ayaa u diyaara inuu noqdo alla caabude insha allah dhahada sida ilaahay jecel yahay u soco in yar baad adduunyada joogaynaa in yar wax yar yaraan baa lagu dhintaa weynaan baa lagu dhintaa xanuun la'aan baa loo dhintaa ka maanta kula ciyaaraya laga yaabaa beritoole in meydkiisa lagugu yeedho qofka bini aadamku muxuu qiimo leeyahay waa caagadaa biyuhu ay ku jiraan biyuhu hadday biyaha ay ka dhammaadaan waa la iska tuurayaa qofka bini aadamka waktigiisu hadduu dhammaadana waa lagu tuuriyo waxaa lagugu tuurayaa qabriga lagugu tuuri qaburaha lagugu tuuri cidna ku iman mayso marka intaan lagu tuurin ilaahay jalla wacala agtiisa wax sii dhigo oo ilaahay agtiisa waxaan sii dhiganno oo xaqa koobaad waxaa inagu leh allahiina abuuray baa inagu leh ilaahay caza wajalla markaa han ka xishoonno oo ilaahay han jeclaanno oo ilaahay han ka cabsanno oo ilaahay caza wajalla yacni meel kastoo aan tagno han garanno inuu ilaahay noo jeedo ilaahayna arkayo ilaahay maceenna yahay ixfad illaaha yaxfadka buu nebigu uhi ilaahay haddaad ilaalisid oo amarka ilaahay caza wajalla aada ilaaliso adigana ilaahay baa ku ilaalin ilaahay baa ina ilaalin markaa haddaan ilaahay amarkiisa ilaalino xaqa labaad waxaa kugu le waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam naftaadan kugu jirta nebi maxamed baa kaaga xaq leh nebigeenna inaan jeclaanno oon ku dayanno oo sunnadiisa raacno oo qaabku u dhaqmay dadka ula dhaqanno oo wixii nebigeennu dhibsanayay innaguna aan dhibsanno oo sida diintu ay tiri aan u dhaqanno waa waxa keliya adduunkan iyo aakhire aan ku liibaanaynaa ilaahay qur-aankiisa waa kii ku lahaa waman yutic allaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima qofka ilaahay adeecay rasuulkiisa adeeca qofkaasi liibaantii weynayd buu liibaanay baa ilaahay yidhi liibaanta weyni waa maxay adduunka dusheedana qofkaasi ciz iyo sharaf iyo maamuus iyo nolol qabow oo deggan baa ilaahay siinayaa aakhirana la cadaabi maayo janno ayuu galayaa jannada markaa maxaa yaalla jannada maxaa yaalla waxa nafteennu ay doonayso oo dhan ilaahay jannadu dhigay waxa naftaadu ay doonayso adduunkan ma yaallaan qofka bini aadamku inuu noolaaduu doonaya nolosha adduunyada ma taallo qofka bini aadamku inuu gaboobin buu jecel yahay dhalinyaro ahaado adduunyada taasi ma taallo qofka bini aadamku inuunan bukoon buu jecel yahay taasi adduunyada ma taallo qofka bini aadamku adduunka dusheeda inuu ku baahan buu jecel yahay taasina adduunka ma taallo adduunka maxaa yaalla adduunka geeri baa taalla adduunka maxaa yaalla adduunka murug baa taalla adduunka maxaa yaalla adduunka gabow baa yaalla adduunka maxaa yaalla adduunka waxaa yaalla gabow iyo geeri baa isdaba socda adduunka maxaa yaalla bugtaan baa taalla adduunka maxaa yaalla masiibe iyo murug baa taalla adduunka maxaa yaalla faqri baa yaalla adduunka maxaa yaalla abaar baa taalla adduunka maxaa yaalla colaad iyo cabsi baa taalla harhkaaga ma qaban karaysid harhkaaga haddaad tidhahdeed waan qaban uu ku waali haddaad iskaga jeesatana harhkaagu waa ku raaci adduunyadu diintay la socotaa hadday dadku ilaahay ka baqaan oo diintooda ku dhaqmaan oo diintooda bartaan oo diintooda ka shaqeeyaan oo diintooda ku camal falaan adduunkan iyo aakhiro dadka ilaahay noloshooda u barakayn adduunyadana meel ay wax yaallaan maaha ha ku daalin kii afrika jooge uu gaajoonayaa uu baahan yahay kii oroba jooge uu gaajoonayaa uuna baahan yahay kii north america gale uu baahan yahay uuna gaajoonayaa kii 6da qaaradood ee adduunka u kala goshoo dhan meel kastay tagaan masiibe iyo balaayaa taalla meesha dhibaatadu aynan oolin waa jannada marka waxaan adduunka oolin ha ka doondoonin waxaan adduunka ilaahayba dhigin bay dadku maanta adduunka dusheeda ka raadinayaan farxadda joogtadu adduunyada ma taallo haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugoon haddaad maanta dhallinyaro tahay berritoola waad gaboobi haddaad maanta nooshahay berritoola waad dhiman haddaad maanta caafimaad qabta berritoola waad jiifi hadda saacadda iminka aan wada hadlayna meeqa ruux baa qabuuraha la geynayaa meeqa ruux baa maaratan dhakhtarada ku jirto dhakhtarada jiifta adduunyadan ilaahay uguma talagelin bini aadamku inay ku raaxaystaan malcab meeshan hadda aan joogno waa malcab waa meel loogu talagalay ciyaar baa loogu talagalay in lagu ciyaaro
ayaa loogu talagalay in la dhex socdo aqla laga dhisto looguma talagelin noloshan adduunyadeena ilaahay wuxuu ugu talagalay dadku ilaahay inay ku caabudaan ay ku raali geliyaane looguma talagelin bini aadamku adduunka inay ku raaxaystaan ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi inama alxayaaةu اddunya lacib walahwun waziinatun watafaakhurun baynakum watakaahurun fi اlamwaali wاlأwlaadi kamahali gayثin acjaba alkufaara nabaatuhu ثuma yahiiju fataraahu musfara ثuma yakunu xuطaama وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور nolosha dhan ee adduunyadu waa shantaa qaybood ilaahay baa qur-aanka ku sheegay dhegaysta waa shantaas ta koobaad waa maxay ilaahay baa qur-aanka ku yidhi waa lacib lacib waxaa la yidhaahdaa waa ciyaarta ubadku ay ciyaaraan caruurtu waxay ciyaaraan baa lacib idhaa lacib waxa ay maanta oo dhan aqale iyo maaragtaane shimbire iyo ay dhoobada ka samaynayeen marka gabalku dhacay hooya tidhaahda warwaraabaha iyo dhurwaagka ka soo yaaca waxay maanta o dhan samaynayeen cagtay marayaan oo way jejebiyaan oo aqalkay ku noqdaan waa lacib ilaahay baa adduunyada ku sheegay lacib lahwigana waxaa lagu macnayaa waa ciyaarta dadka waaweyn haatan iminka banooniga meelahan aad ku ciyaartaan iyo kuwayna daawanaya iyo odayaasha meelaha maaragtaane buulka iyo bubka ku ciyaaraya iyo waxaasaa lahwi la idhaahaya odayaashu ay wakhtigooga ku dayacaan waa tafaakhur nolosha adduunyada waa isku faan dadku waa isku faanaan maanta anaa kaa gaadhi fiican anaa kaa moobeel fiican anaa kaa beer fiican anaa kaa guri fiican anaa kaa reer fiican anaa kaa meherad badan anaa kaa xoolo badan waa tafaakhur waa la isku faanaa weliba dadku ansaabtay carabtu ku faanayeen beriga nasabka iyo reerahay ku faanayeen ninka kaa lacagta badan le xisaabunbuu qiyaamaha kaa batee wax raaxuu ku dheer yahay adduunyada dusheeda ma jirto baynakum watakaahurun fi اlamwaali wاlawlaad anaa kaa xoolo badan anaa kaa ilmo badan haye waxaasoo dhan haddana waxba kama soconayaan ilmahaagiyo adiga malakulmowdka ayna kala jiidi malakulmowdka ayna kala jiidi adiga ilmahaago ku kala qaadi nolosha adduunyada ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay qiimo ma leh marka yaanan adduunyada isku nicin yaanan adduunya darteed isku dagaalamin yaan adduunyada darteed maaragtaane caloolxumo iskugu qaadin weliba maanta waa shacbaan waa 15 shacmaad waxaa laga yaabaa xalay inay ahayd ama caawaba inay noqotaa laga yaabaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa habeenka 15 shacbaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo ilaahay abuuro bini aadana dembigiisa uu dhaafaa laba qof ilaahay dembigooda ma dhaafo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa labadee ninka gaalka ee gaalka ilaahay khayrkii caabudaya dembigiisa lama dhaafo buu rasuulku yidhi waayo waa gaal iyo qofka mushaaxinka ee qof walaalkii oo muslima caloolxumo u hayana kaana dembigiisa lama dhaafo buu rasuulku yidhi marka haan iscafino haan isa saamaxno oo xuquuqda aan laynagu leeyahay aan iska ilaalinayna waxaa ka mid a xaqa ilaahay garo oo xaqa nebigaaga garo uu kugu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xuquuqda bini aadamkana haan iska ilaalino xuquuq alcibaad adduunka dusheeda addoommuhuna xaq bay leeyihiin labadaada waalid xaq bay kugu leeyihiin xaaskaagu xaq bay leedahay ilmahaagu xaq bay kugu leeyihiin jaarkaagu xaq bay kugu leeyihiin saaxiibbadaha xuquuq bay kugu leeyihiin qaraabadaadu xaq bay kugu leedahay qofkaad saacad wada safarteen xaq buu kugu leeyahay adduunkani waxa weeyaan waa meesha bini aadamku xuquuqda ay ku gutaan weeyaan halkan qofka xaqa bini aadamka ku tunta aakhire ayaa camalkiisa laga qaadi doonaa dadkaa la siin doonaa buu rasuulku yidhi waa kii nebigu lahaa xadiis atadruuna man ilmuflis qofka caydha ee miyaa taqaanaan buu nebigu yihi qofka caydha ma ka warqabtaan saxaabadu waxay idhahdeen qofka caydha waxaan u naqaanaa annaku waa qofka lacag iyo alaab aan waxba haysan markaa buu nebigu yihi qofka caydhu waxa weeyaan waa qof banka qiyaama iman doona salaad buu la iman doonaa buu nebigu yihi salaaddii buu la iman doonaa soonkii buu la iman doonaa zakadii buu la iman doonaa xajkii buu la iman doonaa laakiin dad badan baa hortiisa la soo joojinaya dadkaasi xuquuq bay ku sheeganayaan waa maxay xaq ay sheeganayaan waxa uu nebigu yihi mid dhiig buu ka daadiyey mid xoolihiisii buu ka dhacay mid uu xantay mid uu dilay markaasaa la odhan doonaa khayrka uu soo shaqaystay ka qaada oo dadka u qaybiya baa la odhan doonaa dadkaas siiya deedna markaasaa la siin doonaa markaa dadkaas markaabaa weliba dad kaloo badan baa soo hadhi doona o odhan doona ilaahow addoonka annaguna xaq baan ku leenahay waa maxay xaqaasi dembi xaq baan ku leenahayo adduunka dusheediiba xuquuqdeedii naga qabaa
markaa baa la odhan doonaa camalkiisii ka soo qaada camalkiisii waa la qaybiyey wanaagsanaa oo dad kalaa jannada ku tegey markaa baa la odhanayaa dembiga dadkaa ay soo galeen ka soo qaadoo isagaa madaxa u saaro naarta ku tuura baa la odhan doonaa walciyaadu billaah marka xuquuqdahan iska ilaalino xuquuq alcibaad weliba macshara shabaab dhallinyaro ay dhegaysta waa inaad labada waalid xaqooga iska ilaalino labada waalid raalligelintooda waxaa ku jirta raalligelinta rabbiga caza wajalla rida rabbi fii rida alwaalidayn buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam inay labadaada waalid haddaad dooni ilaahay inuu raalli kaa noqdo labadaada waalid buu nebigu yihi raalligeli buu rasuulku yidhi marka waalidadeenna ayaan maamuusaynaa waalidadeenna ayaan ikraamaynaa biruu aabaa'akum taburuu abnaa'akum baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam u aabbayaashiin u ixsaan sameeya buu nebigu yidhi iniguna labadiinna kuwaad dhashaan ayaa inii sabafali doona ha dhow toole aabbaha iyo hooyada hadday kuu nool yihiin waa albaabadii jannada laga gelaya albaab ka mide labadaada waalid maaragtaana ilaalsho albaabkii jannada laga gelaya weeyaan aabbaha iyo hooyada haddaad albaabkaa iska dayacdana adaa iska dayacay haddaad labadaada waalid baari u noqotona adigaa maaragtaana albaabkii jannada ilaalshaday marka ayaa u diyaara labada waalid inuu xuquuqdooda iska ilaaliya bal gacanta ha taago labada waalid sooma maamuusayna haa dhahada haddaad dooni adduunyadaadu inay ku hagaagto labadaada waalid hagaaji hadalkooga ha dhibsan derderashadooda ha dhibsan ixsaankaad u samaynaysa ha dhibsan adiga iyo xoolahaagaba labadaada waalid baa iska kaale ogow saad iyaka ula dhaqanto ayaa adigana ilmahaaga dambe kuula dhaqmi doonaa waalidada halkan joogana waxaan leenahay ininkuna ubadkiinna diinta ku tarbiyadeeya akhlaaqda wanaagsan ku tarbiyadeeya dhaqanka wanaagsan ku barbaariya hadday dhibaato nii geystaana ha habaarina u duceeya u sabro u duceeya deedna u nasteexeeya cumar binu khadaab allaha raalli ka noqday baa odhan jiray ilmihiina 7 sane u horraysa la ciyaara 7 sane ee ku xigtana buu odhan jiray tarbiyadeeyo edbiyo waxbara 7 ku xigtana buu odhan jiray ilmihiina maaragtaane la saaxiibo walaal ka dhigta buu jiro la tashada 21 sano hadduu ilmuhu tarbiyaddaa wanaagsan hadduu ilmuhu helo waxaa laga yaabaa ilmahaas inuu taabo galo adigana uu ku anfaco ummaddiisana uu anfaco xil wixii la saaran hadhow tole ilmahaas waa ka soo baxaya marka aabbayaasha iyo hooyooyinkana waxaan leenahay awlaaddu waxa weeyaan waa beerteennii een adduunka dusheeda kaga tegayne beertaadu ha ku wanaagsanaatee ilmahaaga qur-aanka bar oo sunnada nebi maxamed bar oo akhlaaqda wanaagsan bar abaa hurayra radia allaahu canhu ayaa arkay inan yar oo maaragtaane oday waayeel hor socda buu arkay markaa buu waryaa istaagoo joogso markaa buu yarkii istaagay abaa hurayra ayaa ku yidhi odaygan muxuu kuu yahay markaasuu yidhi waa aabbahaygii dhalay buu ku yidhi markaasuu yidhi ma aabbahaaba haa aabbaha miya haa dhegaysa buu yidhi haddaba aabbaha markaad la socoto ha ka horraynin buu yidhi ha ka horraynin ama gadaashiisa soco oo ka dambe ama dhinacyada ka mar buu ka yidhi ama dhinacyada ka mar hadduu aabbahaas dariiq marayo lama hor socdo lama hor fadhiisto hortiina lama hor hadla buu ka yidhi tarbiyadda ubadka halkaasay ka bilaabayeen saxaabada rasuulka radia allaahu canhum saasay ilmahooga u tarbiyadaynayeen innankana waxaa laynaga doonayaa awlaaddeenna inaan tarbiyadayno oon diinta ku tarbiyadayno oo dabiicadda wanaagsan ku tarbiyadayno oo labada waalid waa macallinka dhabtu waa labada waalid weeyaan oday baa inankiisii ku yidhi wuxuu yidhi waryaa aabba been baad sheegtaa buu ka yidhi been baad sheegtaa hooyadaa been baad u sheegtaa ani been baad ii sheegtaa walaalaha been baad u sheegtaa reerka dhanba been baad u sheegtaa beenta iska daa buu ku yidhi marxaba buu ka yidhi aabba waan iska dayn maanta wixii ka dambeeya mar haddaad ii ogaata been damba sheegi maayo kii yaraa aqalka hadduu ka baxay wuxuu arkay 2 oday oo aabbihii ku soo socota oo arrin kale markaa buu yidhi kolley labadan oday aabbaha bay doonayaane bal ka gaadh markaasuu yidhi aabbo odaygii hebel iyo odaygii kale hebel baa soo socdo kolley aday kuu socdaane maxaan ku idhaahdaa markaasuu u hurdaa ka dha buu yidhi u hurdaa ka dha u jifaa ku dheh markaasuu yidhi aabbahay beenaalaha ugu weyn waa isaga buu yidhi adaa ii macallina buu ka yidhi macallinka dhabtu waxa weeyaan maaha macallinka dugsiga maaha macallinka iskuulka macallinka dhabtu waxa weeyaan waa labada waalid weyn waa labada waalid hadday labada waalid hagaagaan oo dad ilaahay ka baqayo oo diin leh
oo dabeecad wanaagsan la hadday yihiin awlaaduna markaa waynoo hagaagi iyakuna marka aabbayaasha iyo hooyooyinka waxaan leehay oon kula dardaarmayaa lafahaygana kula dardaarmayaa maadaama awlaaddeennu ay yihiin mustaqbalka dalkeenna mustaqbalka ummaddeenna ay yihiin akhlaaqda wanaagsan baan baraynaa dhaqanka wanaagsan baan ku tarbiyadaynaynaa diinta iyo sunnada nebigaan baraynaa aqalladeennana qur-aankaan ku dhex akhrisanaynaa qur-aanka aqalladeenna ka dhigi mayno qabuuro ka dhigi mayno waxaan ka dhigaynaa aqalladeenna kalmasaajid maxaa yeelay aqalka salaadda lagu dhex tukadaa waa aqalkaasi dabeecaddii miskiidkuu leeyahay salaadda waa inaan ku dadaalno gabdhahuna asturka waa inay ku dadaalaan dhallinyaraduna dhaqanka wanaagsan waa inay ku dadaalaan masaajidda waa inaan camirno dacwaddiiyo diinta aan ka shaqayna ayaa sidaa u diyaara in sha allah dhahada allah ina barake